lix arrimood oo aanu raggu jeclayn inay ku arkaan haweenkooda. doonista ama diidmadu waa dabci ku abuuran aadamiga oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu talagalay in dadku waxna ku diidaan waxna ku doonaan. haddaba inkastoo ay jiraan waxyaabo fara badan oo raggu jecel yihiin inay ku arkaan dumarka, haddana khubarada lafagurka ku samaysa arrimaha bulshadu waxay isku waafaqsan yihiin inay jiraan waxyaabo badan oo aanay raggu xiisayn ama aanay jeclayn inay ku arkaan dumarka. lixdan tilmaamood waxay ka mid yihiin waxyaabaha aanay raggu jeclayn inay ku arkaan haweenkooda. dumarka qaarkood waxa ay ku dheeraadaan wax iska sheega naftooda, hadalkoodana waxa ay ku ladhaan faan fara badan iyo kelmadda aniga. haddaba waxaa la ogaaday in aanu ninku jeclayn marka ay gabadhu in badan ka sheekaysa nafteeda. qaar ka mid a dumarku waxa ay wax ka sheegaan dumarka qayrkooda iyagoo oo dabagal ku samaynaya nusqaamaha ama ceebaha ay leeyihiin dumarka kale, ilaa waqtiyada qaarkood ay gabadhu wax ka sheegto sumcadda gabadha kale oo ay ku dhaleecaynayso waxyaabo fara badan. daraasaddan waxaa lagu ogaaday in aanay raggu jeclayn gabadha wax ka sheegta dumarka kale, ay jecel yihiin gabadha nafteeda ku kalsoon kana dhowrsoon sheegitaanka haweenka ee wax kale. hinaasuhu waa shay aad u khatar badan, waxaanu si dhib yar u burburiyaa dhismaha qoyska. waxaa dhacda waqtiyada qaarkood in ninku uu ku dhawaaqo magac gabadh kale isagoo aan u arkayn wax dhibaato ah, taasina ay ka cadhaysiiso xaaska. marka ay cadhooto gabadhu waxaa isna xaggiisa cadhooda ninka oo istusaya in arrinta uu sameeyey ay tahay waxaan laga cadhoon karin. halkaasna isfahmi waayaa ka dhasha. haddaba daraasaddani waxaa lagu ogaaday in aanay raggu jeclayn dumarka ay ku arkaan cadho fudud oo ka iman karta sida magac ama telefoon ay kala hadleen qoftani ka dhaxayso. dhaqanka dumarka waxaa ka qaalib noqda caadifadda iyo dareenka shakhsiyadeed. sidaa daraaddeed waqtiyada qaarkood waxaa laga yaabaa in gabadhu aanay dareemin degenaanshiyo farxad ama wax nafteeda diiqad geliya, ha haata ama daciifnimo dhankeeda ka timaada ha noqoto. haddaba raggu ma jeclaa gabadha muujiso dareen tamardarro ah, calaacal fara badan, mar walbana iska hoysa iyada oo ka cabanaysa waayaha iyo duruufaha ku xeeran. ka hadalka waxyaabaha soo noqnoqda, tusaale su'aal soo noqnoqota taasi oo raggu ay u arkaan karaahiyo, waxaana tusaale kugu fulan inay dumarka ay ragga weydiiyaan maxaa hadda maskaxdaada ka guuxaya amase maxaad ka fikiraysaa. dumarku waxay jecel yihiin inay ragga weydiiyaan su'aalahan si ay u ogaadaan waxyaabaha ku wareegaya maskaxda ninka, iyadoo laga yaabo in ninku ku mashquulsan yahay arrimo fara badan oo mid keliya aan ahayn. qodobka ugu dambeeya oo ah bixidda badan. raggu ma jecla in haweenaydu ay noqoto mid bixid badan oo mar kasta tagta xaflado iyo goobo kale oo inta badan ay u diyaarsan tahay inay hore ugu baxdo. loogama jeedo inay haweenaydu booqato qoyskeeda, ee waxaa looga jeedaa bixitaanada fara badan ee haweenaydu ay ku luminayso shaqooyinka iyo joogitaankii gurigeeda. raggu waxaa la ogaaday in aanay bixitaankaasi badanna jeclayn. daawadayaal, intaasi waxaa inoogu eeg qormadan uu inoo soo turjumay Kamaal Axmed Cali, waxaana idinla socodsiinaya anigoo taajira. tan iyo kulanti dambe waa Bahda Geeska Afrika oo idinku sii dhaafaysa nabadeey.